xuska maalinta aydiska adduunka oo ku beegan 1 Diseembar ayaa maanta lagu qabtay magaalada Laascaanood waxaana si wada jir ah soo qaban qaabiyay hay'adda Commissionka Aydiska Qaranka iyo ururka Bisha Cas ee gobolka Sool waxaana la arkay boqolaal arday oo ka tirsan ardayda Bisha Cas oo ku labisan astaanta maalinta aydiska iyo wacyigelinta cudurkaasi ay ku soo wareegeen shaariciyada waaweyn ee magaalada Laascaanood waxaana socdaalkooda ka soo qaaday afaafka hore xarunta Bisha Cas iyo dadweynaha qaybinayay fariimaha ka hortagga cudurka dilaaga ee aydiska ardayda iyo mas'uuliyiinta ururka Bisha Cas ayaa socod dheer kadib ku soo noqday xarunta Bisha Cas halkaas oo lagu qabtay munaasabad si weyn loo soo agaasimay ugu horeyntina waxa halkaas ka hadlay ku-xigeenka duqa degmada Laascaanood Cabdi Maahir Cashuur oo fariinta munaasabadaasi ugu mahad celiyay ururka Bisha Cas iyo waliba hay'adda Commissionka Aydiska Qaranka waxa la idinka baahan yahay intiina oo soo baratay inaad message weyn gudbin kartaan oo in badan oo khatar gelin karayay aad ka hortagi karaysaan marka waxaan leeyahay waan u mahad celinayaa hay'adda Bisha Cas iyo dabargoynta ka hortagga aydiska sidoo kale waxa halkaas ka hadlay ururka Bisha Cas Marwaseen Macalawaash ayaa xusteen ay ka shaqeeyaan sidii bulshada looga wacyi gelin lahaa cudurka dilaaga ee aydiska waxaan ka duuleynaa lama arrimood ko war in la iska ilaaliyo halkee uu HIV AIDS uu ka yimaado oo ah awalan maxaan ku dhahdaa galmada xaraanta ama galmoodka sida aan sharciga ahayn koow qalabka aan nadiifta ahayn gabadhiina waxa halkaas ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool Mudane Cabdirashiid Xirsi Dalmar oo uga mahad celiyay cid kastoo gacan ka geysatay munaasabadaasi ururka Bisha Cas iyo waliba hay'adda Aydiska Qaranka Soomaaliland